barnaamijka falanqaynta jimcaha ee maanta oo 16 bisha December waxaa uu kaga hadli doonaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed gaar ahaan arrimaha la xiriira muddooyinka kordhinta ee baarlamaanka iyo weliba arrinta ku saabsan muddaxileedka madaxweynaha lafta garan ayaa ku eg muddo haatan ay naga xigtay 2 ilaa 3 maalmood iyadoo baarlamaankana muddadiisu ay dhacayso 2017 su'aalaha la isweydiin karo ayaa ah maadaama haatan la sheegay in dib heshiisiin la wado yay tahay cidda la heshiisiinayo loo arki karaa xiisadda socota mid looga galeeya markaa in hoggaanka lagu kala wareegsado dastuurka haddii loo laabtana arrintan sidee noqon kartaa weydiinahaas iyo kuwo kale ayaad kaga badin doontaan barnaamijka maanta waxaa sidoo kale aad maqli doontaan anigu maarku siyaasiyiinta isku khilaafsan arrinta koonfur galbeed wax dhibaataa kama jirta dib heshiisiin noga baahna sabab ay ka jira koonfur galbeed runtii waa arrin walaaceeda leh bulshada caalamkana soo wada jirtay waxaanan dhihi lahay arrintaas waa in xal waara laga gaara barnaamijka waxaa soo saaray cabdiraxmaan xaaji cadow iyo cabdiraxmaan cali fardiil anigoo maxamed siil xasan ayaa idinla socodsiinaya marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka ayaa saciid xasan ojan ayaa sheegtay sagaalka migaa xarunta doorashada ee ay ku waxyeeloodeen muddo cusub oo magaalada ruushka ah markaana markii dalkaasi uu ku dhacay wax ka badan kalabar duqeymaha la sheegay inay gaarayaan yaraan 60 ayaa lagu soo waramayaa inay ku dileen yaraan 3 qof oo rayid ah bartamaha iyo koonfurta dalka Ukraine bartamaha magaalada Kryvyi halkaas oo gantaal ku dhacay meel ay degan yihiin shacab waxaa jirta cabsi laga qabo in dad ay weli ku jiraan burburka dhismaha hoostiisa magaalada labaad ee dalkan Ukraine Kharkiv ma jiraan haatan wax koronto ah magaalada caasimadda Kiev waxaa gurmadka ayaa ku howlan soo celinta korontada saraakiishu ayaa waxay ku eedeeyeen maamulka Moscow inay si ula kac ah u beegsanayaan xarumaha muhiimka ah maadaama heerkulku uu aad hoos ugu dhacay Timur Moscow Mayla North ayaa ah taliyaha madaxweynaha Zelensky ee dalka Ukraine A number of top Ukrainian officials tirakamida saraakiisha silsiladeed dowladda Ukraine ayaa kasoo muuqday warbaahinta reer galbeed laakiin sidoo kale waxay kasoo muuqdeen kasta iyagoo sheegaya in qiimeyntooda ah in ruushku sii labanlaabaya dagaalka isla maraantaana diyaarinayo ciidan cusub oo abaabul Vladimir Zelensky ayaa isaguna haatan sheegay in ciidamada ruushka ay markale kusoo foolleeyihiin magaalada Kiev isagoo taasi qabatay hay'adda hawada sare ee maraykanka ee NASA ayaa bilowday howlgal ay ku samaynayso sahamintii ugu horreysay oo dhammaan biyaha toogadiisa saaran iyadoo hawada sare kasoo bilaabaysa gantaal sidii dayax gacmeed ayaa haatan ku soo dhacay saldhigga hawada sare ee Hindenburg ee gobolka California howlgalkan oo loo bixiyey SWOT ayaa waxaa loo isticmaali doonaa tiknoolajiyadda iyo raadaaro si loo cabiro jooga biyaha iyada oo sahmin doonta boqolkiiba 90 ka mid ah wada dhulka iyo 20 maalmoodba sida arooyinka wadiyada goobaha biyaha lagu kaydiyo madaxa dhulka ay si isbedelayaan waqtiga dambeeya xogta la ururinayo ayaa waxaa loo isticmaali doonaa in lagu hagaajiyo saadaasha iyo jawiga cimilada iyo in lagu bari saaro maaraynta ilaha biyaha nadiifka ah howlgalka sahminta biyaha dusha sare iyo badweynta ayaa waxaa si kaashanaya oo si wadajir ah u maamulaya dhinacyada kale ah hay-adda NASA wakaaladda hawada sare ee Faransiiska dowladda Canada iyo dowladda Ingiriiska dowladda Japan ayaa ku dhawaaqday inay laga gaari doonto kharashaadka ay ku bixiso militariga 5 sano ee soo socota ayna awoodi doonto inay u yeelato inay ku weerarto saldhigyada cadowga iyadoo sabab uga dhigaya khatarta gobolka Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi isbedelada ayaa calaamad u ah habeynta ugu weyn ee lagu sameeyey istaraatiijiyadda amniga ee dalka Japan tan iyo markii ay qaadatay dastuurka nabadeed wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka qorshahan cusub ayaa maamulka Moscow waxay ku dhiisan doontaa dagaalada dibadda dheer ee uu Maraykanku sameeyey kuwaasoo awood u leh inay burburiyaan goobaha cadowgu soo weeraraan haddii Japan la weeraro waxay sidoo kale kordhin doontaa awooddeeda dagaalka internetka horaantii isbuucan maamulka Beijing ayaa waxay ku guurisay maamulka Tokyo inay u aragto xiriirkooda mid iskaashi maxkamadda gaarka ee qaadaysa dambiyada dagaal ee colaadii ka dhacday Kosovo ayaa soo saartay xukunkii ugu horreeyey ee dambiyo dagaal iyadoo ku xukuntay nin kasoo jeeda qowmiyadda Albania oo horey u ahaan jiray taliyihii jabhadda 26 sano oo xarig ah
maxkamadda oo ku shaqaysa sharciga kosovo balse saldhigeedu yahay magaalada the hague ee dalka holland ayaa heshay xog ah in saalax mustafa uu mas-uul ka ahaa xariggii iyo jirdinkii loo geystay dad rayid ahaa qeyro ku jiray sanadkii 1999 kadib loo geystay mid ka mid ah maxaabiista dacwad ogayaasha ayaa sheegeen gabarayaasha mustafa uu waxyeelay ay ahaayeen dad asal ahaan kasoo jeeda albania ugu eedeeyey inay la shaqaynayeen serbiya xilligii kosovo ay xornimada ka qaadanaysay serbiya inkastoo tani ay tahay xukunkii ugu horeeyey ee xilliyada dagaalka ciidamada ayaa sanadkii hore xabsiga dhigtay laba askari oo kale oo ka tirsanaan jira ciidamada xoreynta kosovo si ay u cagajugleeyaan markhaatiyada kalkaaliso caafimaad oo u dhalatay dalka australia oo ahayd qofkii keliya ay ka badbaaday xasuuqii ay geysteen ciidamada japan laaki labaadi adduunka ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay kalkaalisadii ugu horeysay ee lagu xasuusto faallada xuska dagaalka ee dalkaasi vivian ulwilkeed iyo 20 kale oo kalkaaliyo caafimaad ah ayaa ka mid ahaa kuwii u baxsaday jasiiradda banka ee dalka indonesia sanadkii 1942 markii kooxdeeda ay gacanta ku dhigeen askarta japan ayaa waxaa lagu eedeeyay askartaasi inay ku kaceen faraxumayn kadibna waxay dhabarka ka degteen dadkii ay qaqabteen ulwilkeed ayaa waxay iska dhigo 12 maalmood ah iyadoo daryeeshay askari british ah oo dhaawacmay kahor inta aanay isdiidin oo ay 3 sano ku qaadanin maxbuus dagaal xabsi waqtigii nabadda ayaa waxay ka qayb noqotay xaraqaadkii iyo tacaalintii kalkaaliyaasha dowladda australia ugu dambeyn dowladda burkina faso ayaa u yeertay safiirka gaana u fadhiya dalkeeda si uu ugu faahfaahiyo sababta uu madaxweynihiisu ugu eedeeyey dowladda burkina faso inay qoratay arrinta buush ah madaxweyne nana akufo-addo ayaa sheegay kooxda wagner ay xoogay doonto xuduudka waqooyiga ee dalka gaana dowladda ayaa waxay ku andacootay in burkina faso ay wagner heshay goob macdanta laga qodo si ay ugu bedelato adeegyada shirkadda wagner wasaaradda arrimaha dibadda burkina faso ayaa sheegtay in akufo-addo ay ahayd inuu si toos ah dowladda fadhigeedu yahay magaalada wagadugu la soo xiriiro halkii uu si fagaaro ah ugu hadli lahaa wax kala awaal ah wagner ayaa ku adeegsay ciidamada reer galbeedka kuwa qaramada midoobay inay ka fuliyeen qaaradda afrika xadgudubyo kuwaas ah kuwa iyaga haatan lagu eedeynayo intaa waxay nagu dhow warkii aan dib ugu celiyo ana xasan shiil iyo qeybaha kale ee barnaamijka shiil mahadsanid shiil xasan markaan waa inala socodsiinayay warkii jimco wanaagsan galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidaan horeyba idinku soo sheegnay jawaabta jimcaha ee galabta waxaan ku faaqidi doonaa xiisadda siyaasadda ay ka taagan koonfur galbeed gaar ahaana muddaxileedyada baarlamaanka iyo weliba tan madaxweynaha koonfur galbeed waxaa marti noogu ah doodeena xildhibaan idriis axmed yacquub oo ka tirsan golaha wakiilada koonfur galbeed xildhibaan maxamuud maaxi yuusuf oo isna ka tirsan golaha shacabka koonfur galbeed cumar yuusuf cabdulle oo isna macallin cilmiga siyaasadda wax ka dhiga jaamacadda simad islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda soo dhowaada mudanayaal waa tahay marka hore waxaan jeclaan lahaa in aan ku hormaro xildhibaan idriis axmed yacquub baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu meel mariyey in doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka la qabto 2024 iyadoo madaxweynaha lafta garan muddaxileed waa tahay idriis waan kusoo laaban doonaa aan markaa ku wareego xildhibaan maxamuud maaxi yuusuf maxamuud marka hore baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu meel mariyey doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka la qabto 2024 iyadoo madaxweynaha lafta garaan muddaxileedkiisa uu dhammaanayo sanadkan maxay u xusheen oo markaa ay u cuskadeen arrintan waa dhowahay walaal sababta qodobkaas loo cuskaday wuxuu ahaa xildhibaanada golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed ayaa soo jeediyey motion oo motionkaas oo ah qodobkiisa motion dastuuri ah oo qodobka kontonaad ee dastuurka dowladda koonfur galbeed xildhibaanadaas ayaa gareystay sababtay u codsadeen qodobka wuxuu ahaa iyadoo ay jirto doorashada madaxweynaha
iyo doorashada golaha baarlamaanka ay u dhexayso 1 sano oo waqtiyada hore soo jirtay madaxweynaha markuu 1 sano uu ka horeeyay xildhibaanadiina 1 sano ay ka dambeeyaan ayaa waxay garwaaqsadeen in doorashadan liswa mar walba mar la kala qabanayo in la waajibiyo xildhibaanada gudaha doorashada kuwaas daraadood ay u siiyeen baahida keli ee jirta ee qaf loo mideynayo ay tahay in meesha ay ka baxdo waqti badan oo kulumi lahaa iyo gargaar badan oo laga soo kala qabto gargaarkaas in badan waaweyn weynta dalbeed looma hayo gacantaas maanta dhibaataysan saas daraadeed ayay garwaaqsadeen inay doorashada hubeyaan oo hadda gargaar u waajiyo sidaas ayaa loogu dhigay 2024 عندما ندرس arrintan baarlamaanka ilaa uu hadda sabab loo oo hadda la isku diri karo qodob sharci ah waaye dadka duruuf gaar oo ku dhimaadayna ilaa iyo hadda muuqato lama sheegi karo marka waxaan waayo hadda wax qodob sharci ah oo qodob sharci ku tiirsan inuusan ahayn waayo markii mooshin la keeno golaha qaar loo soo maraajirto guddiga joogtadiyaa lasoo marsiyaa ajendahan laga hadlayo wuxuu ahaa ajenda aad u weyn waaye wuxuu la xiriiraa aayaha koonfur galbeed waxaa laga rabay in lasoo marsiyo guddiga joogtada ah kadib saasuu kusoo maro markii dabadeyntiisii dadka laga soo qanciyo lasoo arko in la keeno laakiin ka bilaawday waxaa la isku raacayaa laleeyahay 20 daqiiqo in wax la go-aamiyey marka arrintan baarlamaan showay ku noqotay laakiin sida hadda muuqato oo xildhibaanada ay aaminsan yihiin waxa la sameeyey ajendihii markii la keenay mooshinkii waxaa la ogolaaday in la goboli karo horta waxa la aansiiyey عمر وانكسو لابن دونا xildhibaan Idris Umar Yusuf adigu see kugu muuqataa arrintan sida loo qaatay oo marka lagu asiyay sidoo kale walaalaad aad u mahadsan tahay waxaan rabnaa horta inaan ogaano asaaskii jamhuuriyaddii saddexaad ee cartan ugu soo aasasay soomaalida laba shay ay soo heshiisay midda koowaad waa awooddeed ku salaysan 4 dhibic walow ay loo jirto midda labaadna waa qabashada doorashada mar walba oo ay dhamaato mudahleedka ha noqoto doorasho federaal ama ha noqoto doorasho maamulgoboleed ha noqoto muddooyinkii u dambeeyey ama teerankii u dambeeyey soomaalidu waxay la tacaalaysay muddo kordhin aanan ku salaysnayn ama aan ku imaanin heshiis bulsho ama sharci iyo ixtiraam iyo dastuur aanan ku imaanin marka waxaa is leeyahay arrinka muddo kordhinta koonfur galbeed keliya kuma timanaa koonfur galbeed kuma timana ee 4 maamul goboleedada ayaa ka siman muddo kordhin min 1 sana u wada sameeyey waxaan isdhihi karaa muddo kordhintaas haddii aysan waafaqsanayn dastuurka ha noqdo dastuurka federaalka ama ha noqdo dastuurka maamul goboleedyada ama ha noqdo haddii muddo kordhintaas aysan ku imaanin heshiis bulsho oo siyaasiyiinta ama social contract iyo bulshada ay wada galeen wax u dhimayo muddo kordhintaas waxay noqonaysaa mid baadil ah oo wax kama jiraan ayay noqon doontaa waxayna sababi kartaa in dhibaatooyin ay ka dhashaan ama rabshado ama dagaallo ama waxyaabo lamid ay ka dhashaan marka waxaa is leeyahay saaxiibkii xildhibaanka wuxuu sheegay in ay tahay in la simo doorashada xildhibaanada iyo midda madaxweynaha runtii aan uga kalsoonahay koonfur galbeed inay ka duwan tahay maamulada kale oo madaxiloodkooda ay kala duwan yihiin oo lagu waqti la kala qabto taas wax ku siman ma lahan haddii aad eegto taariikhda dowladnimada soomaaliya 60 ilaa 67 doorashooyin ilaa 2 doorasho 3 doorasho la qabtay doorashooyinkaas dhan midda madaxweynaha iyo midda baarlamaanka waa la kala qaban jiray laba sano u dhaxeeyay sida hadda koonfur galbeed ka jirtaba
marka waxaa isleeyahay justification muu noqon karto mutafarrid walba oo aan bulsheed lagu ahayn muu noqon karto sidoo kale waxaa isleeyahay taariikhda cusub ee dowladnimada soomaaliya ama maamul goboleedyada haddii eegnaba waa markii koowaad maamul goboleedyadu ay muddo kordhin ay samaystaan weliba mid iskooda baarlamaanada khiyaano ama madax maamul goboleedyadana iyagu si khaasa u daneeyaano marka muddo kordhintaas waxay ku xirnaan doontaa sida bulshada waxaan waa social contract waa heshiis bulsho sida bulshada iyo siyaasiyiinta ay raalli u noqdaan ku xirnaan doonto keliya baarlamaanka in la mariyo oo maxay ahayd oo sharci kuma noqonayso waxaan ogsoonnahay muddo kordhintii 2 sano ahayd teeramkii hadda ama maamulkii madaxweyne farmaajo uu sameeyey baarlamaankii ansixiyey adasiinkan haddana maysan soconin oo shaqayn weysay sababta u shaqayn weysay waxay ahayd waxaan raalli ku ahayn ama waxaan raalli ka ahayn qaybtooda bulshadii waa maxay ahayd siyaasiyiintii marka muddo kordhin walba oo aan heshiis bulsho ku imaan waxaa isleeyahay ma shaqayn doonto waxay noqon doontaa midii maxay ahayd federaalka laga sameeyey noqon doontaa isleeyahay waa tahay xildhibaan maxamuud saxiib dastuurka marka loo laabto arrintan sidee noqonaysaa dastuurka markii loo noqdo dastuuriyan ahaan golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed sida dastuurkaba ku qoran golahaas waa golaha hay-adda ugu sareyso ee sharci dejinta golahaas kuma imaanin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha ayaa soo wakiishay xubin walba ka mid ah ee golaha wakiilada ee fadhido xubintaas waxay ka tahay qolo walba misana ummad kasto iyadoo qof sanbalaha laga soo qaaday meesha u fadhiyo loona ogolaaday inay noqdaan hay-adda ugu sareyso ee sharci dejinta dastuurkana macnihiisa ma aha waa sida aayada qur-aan waxaa laguma bedeli karo dastuurka dastuurkana waa wax ummad ay ku heshiisay sis ummadeed ku yimaaday ummadaasna waxay soo wajeesheen golaha baarlamaanka ee dowladda koonfur galbeed oo sharci dejinta ayaga ah sidaas daraaddeed ayaga ayaa wax ka bedelay qodobka kontonaad ee dastuurka dowladda koonfur galbeed sidaas daraaddeed ayay u suwaafiyeen labada doorasho bixileedka ma aha suspension misana muddo kordhin madaxweyne qaadanaya waxay tahay waa mideen doorasho taasna waxay ka timid iyadoo bulshada ka timid oo kale waaye sidaas daraaddeed waa xildhibaanadii golaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed oo laga soo xulay beelaha soomaaliyeed ee dega dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa qaatay go-aankaas ayagoo ku fiirinayo si loo gaaro baaro iyo geedi socod iyo hanaan qurux badan ee dowladnimada ku dhisan tahay ay kala dambeyn haddii sharciga oo dowladda koonfur galbeed iyo dadweynaha dega aysan ka dambeeynin golaha baarlamaanka baarlamaan ma jiro dowlad ma jirto waa tahay waa kugu soo laabanaya xildhibaan idris axmed ya hadalkan maxaad ka leedahay sida hadda aqoonyahanku uu sheegay waxa meesha la iswaafajinaayo ma ahan wax oo dowladdii ka horeysay dowladdan waa koonfur galbeed dowladdii labaada hadlaysan kii ka horeysay qaabka hadda la diiday oo macnaha waxay ku soo gashay baarlamaankii iyo madaxweynihii hurdadoodii ma iswaafaqsaneen haddana doorashadiyaa lagu soo galay madaxweynaha hadda joogo qaabkaas uu ku imaaday haddana wax diidaayo ma jirto in qaabkii uu ku imaaday qaabkaas oo kale haddana doorasho inuu ku galo markii loo soo dego dastuurka qodobka 19 muddada xilheenta xildhibaanada waa 4 sano faqradiisa koowaad uu tilmaamaa isla qodobka 50 ee madaxweynaha muddada xilheenta madaxweynaha faqradiisa koowaad waa 4 sano wax laga bedelay ma jirto marka ayadoo saa jirto haddana in la dhaho waxaa laga bedelay waa lagu noqon karaa deedka golaha hal maalin uu ka dooday dastuurka wax laga bedelay ama dastuurka sidan ah ma jirto marka meel loogu soo ganbado ma jirto in dastuurka wax laga bedelay la dhaho anaga doodda meelka dhacday waan sheegnay ajendaha maalintaas loo fadhiyey waayo waxa la ansixiyey ma ahan wax dastuur wax laga bedelay waa ogtahay qodobkan markii lasoo bandhigo
mooshinkan inta bilood uu qaadanayo waayo wax baarlamaanka keliya ku ekaanayo ma noqonayso waa waddankan siyaasiyiinaa joogaan aqoon-yahanaa joogaan guusuu leeyahay shacabuu leeyahay marka intaasoo dhan uu ka wada dhexeeya haddii weeranka wax laga bedelaayo duruufo loogu bedelo ilaa iyo haddana ma jirto waayo waa wax lasoo tijaabiyey doorashaa lagu soo galay madaxweyne cusubaa ku imaaday baarlaman cusubaa ku imaaday wax ku jabnaayo ma jirin intaanoo sano marka taasaa keenayso in maanta qodobadan la adkeeyo oo wadadii hore loo soo maray hore loogu sii dhaqaaqo haddii tusaale aan ku siiyo waddanka waxaa laga yaabaa inuu firaaq dastuuri ah galo waxaa la iswaafajinaa haddii la dhaho sii ugu dambeysay dowladda federaalka waddanka wax u fogii ma jirin xildhibaanadii banaankay kusoo dhaceen madaxweynihii banaankuu kusoo dhacay waqtigaa kaa dhamaaday aa la dhahay marka waxay noqotay waddankii qof toos looga amar qaatay in la waayo marka taasoo kalean tukannahay anaga inay meesha imaado waxaan lasoo tijaabiyo soomaali aqoon usoo yeeltay waayo marka waa qodobadaasaa meesha ku jiro waa tahay cumar yuusuf waad arkaysaa labadan dhinac doodan marka sidee laysu waafajin karaa walaal waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay xildhibaanka walaalkay ku doodaya in aysan lahayn muddo kordhin oo ay tahay midayn doorasho waxaa weydiin lahaa haddii koonfur galbeed la rabo in la mideeyo qabashada doorashada baarlamaanka ama midda madaxweyneho ma laga fikiray weli in midda baarlamaanka lasoo hormariyo oo maadaama laba sano u dhimantaana hadda waan midaynaynaa bal midda madaxweyneha ayaynu dib u dhiginay kan baarlamaanka aan soo hormarino midda kalena waxaa isleeyahay arrintan ma ahan arrin keliya koonfur galbeed ku kooban 4 maamul goboleed 5 maamul goboleed hadda waddanka ka jirta 4 ka mid ah ayay baarlamaanadooda muddo kordhin ay sameeyeen marka waxaa isleeyahay waa arrin u baahan in dowladda federaalka ah ay la timaado qorshe ama siyaasad guud ee lagu wajahayo muddo kordhinta sharci darrada oo ay samaysanayaan maamul goboleedyada haddii marka arrinkan looga aamuso oo muddo kordhintaas ee dhacdo maamul goboleedyada waxaa isleeyahay waxay tegi doontaa in 3 fud uu noqdo oo xitaa dowladda federaalkana marka waqtigu dhamaado madaxda hadda joogta ay guri yiraahdaan inaguna 2 sano 3 sano 4 sano oo kale aan ku darsanay marka waxaa isleeyahay inta ay goorgoorta waxaa lagu baahan yahay dowladda federaalka ah inay la timaado qorshe midaysan oo lagu wajahayo maamul goboleedyada sabab waxaa socotay muddooyinkii u dambeeya in doorashooyinka maamul goboleedyada hal xilli lawada qabto ama hal sano ama hal bil lawada qabto ay wada dhacaan waxaan ogsoonaynaa hadda doorashooyinka maamul goboleedyada inaysan hal xilli wada dhicin oo midku mar dhacdo qaarkood sanooyin ay kala dambeeyaan marka waxaan isleeyahay muddo kordhinta hadda maamul goboleedyada qaar ay sameeyeen waxay asaas u tahay doodadaas muddooyinkii u dambeysay la socotay marka doodaas si haddaa u eegto waa dood jaban sababtoo ah institutionskeenna ama hay-adaheena dawliga maanta waa daciif oo haddii xitaa la yidhaahdo kalbixeeda la doorashada maamul goboleedyada wada dhexaysa hal waqti wada dhexaysa waxaa macquul ah in meelaha qaar ay ka gudmarto maadaama hay-adihii dowladda ay daciif yihiin sidoo kale cid damaan qaadaysa ma lahan yani in doorashada xilligaas lagu qabana tusaalahaan hadda koonfur galbeed haddii ay mudaysay jiray sanadka dambe maanta ayaan qabanaynaa doorashada cid damaan qaadaysa ma lahan haddana waxaa macquula baarlamaanka in isku gudisoo dhaho 6 bilood haddana lagu daraa marka waxaa isleeyahay iyadoo dalka dagaal uu ku jiro iyadoo aan ogsoonahay dalkiin abaaro iyo maxay haysto colaado ay ku jiraan waxaa isleeyahay waan isdaro in maanta laga hadlo in muddo kordhin maamul goboleedyada qaar ay samaystaan marka arrintaas waa arrin lagu soo jabay waxaa sii lahaa koonfur galbeed ama guud ahaan maamul goboleedyadaba in doorashada xilligeeda ay ku qabtaan doorasho haddii la qaban waayena wax waddankan burburiyey waa doorasho la qaban waaye waxa wadamada hadda libiya iyo syria iyo ethiopia oo aan darisnay hadda dhibaatada u socoto waa doorasho la qaban waaye marka waxaa isleeyahay wax hadda isleeyahay hala joojiyo waxaa laga yaabaa inay ka qarnaato waxay keento doorasho la qaban waaye yani dhibaatada ay keenaysaa laga yaabaa inay ka badnaato si awgeed marka waxaa isleeyahay xildhibaanka ceebka goobta kuli jira iyo guud ahaan madaxda maamul goboleedyada ha noqoto koonfur galbeed ama galmudug iyo hirshabelle jubbaland ha noqoto waxaa isleeyahay dalka baraarihiisa iyo horumarkiisa wuxuu ku jiraa iyo dimuqraadiyiintiisa wuxuu ku jiraa in doorashooyinka la qabto waqtigii lagu ballanno waqti bulshada la qabtay waa tahay xildhibaan maxamuud maaxi adigu marka laga hadlayo arrintan dad badan baa waxay leeyihiin waxaa arrintan ku hoos jira
متكرر كتبت لو رادني حكرة arrintaas aniga waxaan dhihi lahaa arrintaas waa midkaan aniga la qabin dadka saaxiibkii cumarna wuxuu yidhi su-aashiisa ahayd in maadaama saaxiibkiisa laga dhigay in hal sano lagu kordhiyo oo lagu qabaas afarta laga dhigo maxaa xildhibaanada ayaga hal san ku jir waayey oo saas isku wafjin waayo hal sana soo dhici waayo su-aasha saas ayadaan jeclahay عمر وفرنسي هاي أو كبير من فرنسي على هاي ولها وكيلة دول وكل البيت وحكومة السلطة الشرعية يقضبوا كل حاجة الدستور في حراسات. فالسرادة أنا دستوريا أهم وحان قبنا وحكة الدستور اللي قبل دلائه وحيد كيمانا يا اللي بعمله موشن رجيرين معناها إن السوجيريان عرن صان arrinta ay soo jeedaan xildhibaanada hadday noqotay in muddaxileedka la iswaafajiyo 2024 laga dhigo taas waa soo jeedin ka timaaday xildhibaanada dhankooda haddii ka imaan lahayd taas mid la mid ah waa soo gaabinaynaa 23 ka dhigaynaa labadeenaba hal mar aan odaynaa iyada bulshadaas oo mar imaan lahayd laakiin tan baa imaaday aan la meel mariyay madaxweynihiina noo ansixiyay oo noo saxiixay anagana aan meel marinay sidaas daraadeed anaga waan ka duwanahay sidaas uu sheegay maamul goboleedyada dhan waxay ku tartanayaan yiri muddo koror madaxweynayaasha kale oo dhan marka anaga dadkaas dadkaan ku doonahay dadkaas mid yihiin anagana madaxweyne wax ku darsaday iyo kalsooni ma arkin aniga waxa hor ugu sheegay in doorasho la iswaafajinayo 23 aan ka dhigno dhammaanteena xildhibaanada iyo madaxweynaha sidoo kale mooshinkeena wuxuu ahaa in anaga aan waafajino labada doorasho aan meel marino hal marna aan ka dhigno waqtiga iyo dhaqaalaha uu noogu yaraado dowladda koonfur galbeed way ka duwan tahay dowladaha kale awaaro fara badan iyo colaado fara badan ayaa ku dhacay sidaas daraadeed horaan kugu sheegay miisaaniyaddeena ayaa diidayso in aniga laba doorasho guddi doorashooyin amni qarashaad fara badan aan ku bixino ayaa waxaa nooga dhaqaale yar nooga waqti gaaban in doorashada aamidana hal mar aan ka dhigano sidaas daraadeed haddii maamul goboleedyada kale ay madaxweyneyaalkooda ku darsadeen muddo kororsi aniga madaxweynehena saas lama qabo aniga waxaan qabnaa iswaafajin laba doorasho kale xilli dhici lahayd in hal xilli ay dhacdo waa tahay idris adigu ma qabtaa aragtida ah dhaqaale xumo iyo amni darro in aan loo qaban karin doorashada adigu ma qabtaa arrintaas وأرتاح وحن صلى وحن صلى يريد وحب وعقل عن طوعة ونقل وعي أرتاح والكيف يفرح وشيء رحمين على الكتاب هنا حب الشيء وأرتاح على الكتاب وأيضا صورة خبرة لصور جل اللي بعنا خبرة لصور الجيران أحب يريد لصور مرة صبر قلت لعنة سماعها في الجيران كل الجميع waxay u taasayeen soo dhaxmeeyay xildhibaano gaara faaq waxa ku jirtaa baarlamaanka in wax sawir ama 26 sano ay ku gudbinayaan ay baarlamaanka waxa xogtaasi aan xukun iyo sanadkan oo qaab loo soo hadana ay marka qoyska waxa lagu qiimeeyay ilaa iyo hadda uu tasbiin u yahay oo laga doodo karo keenayso marka laakiin sawirada loo sameeyay dhaqaale waxyaabaha badan wax la soo qoray waa la soo jaabi marka had sabab ma dhaqanayn sababta sababta kasta waa oo lagu baahi karo inay soo horjeedi karaan oo soo sameeyaan kasta wax la isku beeri wadan mana qanayso يعني كل واحد منهم يكون كلاس ولا على قصة مرة وحتى لو تبي صراحة الصوري وحوارها فالمكتوب فهذا كان هاي واحد عن مناسب واقع اللي بندرس وخصوصا مثلا دانات waxaan soo gaarnay xilliga marka
fikradaha dadka facebooka ay kasoo diidanayaan anigu ma arko siyaasiyiinta isku khilaafsan arrinta koonfur galbeed wax dhibaataa kama jirta dib u heshiisiin uma baahna shirka dib u heshiisiinta gudoomiyaha uu ku baaqayna waa mid adi kulley lagu samaynayo xal in loo helo muranka siyaasiyiinta is haysta runtii koonfur galbeed waxay u baahan tahay in la qabto bulshada dhibaataysan la gargaaro horumarkeeda laga shaqeeyo dhinaca waxbarashada caafimaadka laakiin maanta sidaas darteed dadaad daraynaya inay kursi ku helaan in qalalaas la sameeyo waqti kastana hadde iswaafajinta baarlamaankana wadanaa ku jirta mar walba murankaas wuu imaan lahaa laakiin hadda haddii xal laga gaaro waxaan amin kulley ku talinayaa in qorshe loo sameeyo ama lasoo koobo muddo 6 bilood kadib baarlamaanka dib loo hagaajiyo dad qaar ayaa ku fikiraya madaxweynuhu wuxuu ku fikiraya in xildhibaanada hadda usan dhaqaale u helin xildhibaano cusub uu isaga keensado uu doorasho ku galo raggan waxay raadinayaan inay xildhibaanadan baahan oo jidka taagan oo khilaafsan madaxweynaha kasoo horjeeda inay fursada uga faa'iidaystaan oo doorasho ku galaan madaxweynaha meesha uga saaraan marka taasaa meesha taagan marka aniga haddaan ahay waxaan ku talin lahaa inaan khilaafka lasii buunbuuninin oo cid isdagaalsan iyo qabaa'il isdagaalsan mid koonfur galbeed ka taagan ma jirtay koonfurta galbeed waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo danaheeda iyo horumarkeeda nolosha waa maasantiin b b c asalaamu calaykum bahda b b c magacaygu waa falastiin khaliid yuusuf oo joogta magaalada muqdisho haddii aragtidaydan ka dhiibto mawduuca run ahaantii muranka hareeyey maamulka koonfur galbeed waxa uu hagaajinayaa islamarkaana hoos u dhigayaa horumarkii deegaanka iyo sidoo kale siyaasadda horumarkii laga gaari lahaa madaxweyne lafta gareenna sidaan ognahay 19 bishaan ayay uga tahay xilliga madaxtinimadiisa loo asteeyay amase waqtigiisu ahaa waxaana habboon markaasi baarlamaanka u kordhiyey muddada 1 sano in laga laabto islamarkaana doorasho la qabto waayo shacabku waxa ay ku kalsoon yihiin waqtiga madaxweynuhu xilkiisa uu dhammaado in lasoo doorto madaxweyne kale taas ayaana maamul ku shaqayn karaa haddiise taasi ay dhici weyso waxaa laga yaabaa siyaasiyiin wana gaara kale iyo kuwo markaasi diidan muddo kordhinta in khilaafku sii baaho islamarkaana uu saameyn ku yeesho dhammaan maamulka waxaana habboon in maamulku ay arrintaas si wadajir uga fadhiistaan wax la isku raacsan yahana la meel mariyo amaadsantiin b b c asalaamu calaykum bahda b b c magacaygu waa qadar sugow salaad oo joogo gobolka jira gaar ahaan degmada beled xaawo khilaafka siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed runtii waa arrin walaaceeda leh bulshada caalamkana soo wada jiitay waxaanan dhihi lahay arrintaas waa in xal waara laga gaara si doorashada iyo caqabada ee ugu dhalanin inay haysad horle ay ka dhalato waa dhibaato waxaanan ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda soomaalida inay arrintaas gacan weyn ka geystaan si khilaafka looga hortago oo arrimo khilaafin u dhalanin iyo dhibaatooyinka laga soo gudbay waxaana leeyahay waa soomaali waa in col way ku soo daashay ee dagaal xiiso uma qabtee waa in xal waara laga gaara reer koonfur galbeedna waa inay isdejiyaan oo arrinta siyaasadaha iska hortaagan oo ishor imaanaya ay xal ka gaaraan waad salaamantiin bahda b b c assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum magacaygu waa ilaad adin xasan oo jooga degmada boof ee gobolka doolo golaha shacabka ee koonfur galbeed oo muddaxileedkooda doorashada ka wada dhigay golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha in isku mar la qabto runaantii qorshahaas aad baan usoo dhaweynayaa waana qorshe aad u muhiim oo kala qaarnaantu waxaad moodaa marka horeba in aysan qorshaba ahayn maadaama dowladda federaalka ee soomaaliya ee waddanka hogaansada madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka uu isku hal sano la qabto waxaanan leeyahay xubnaha iyo dadka siyaasiyiinta ee diidan barnaamijkan 1 sano ee la wada qabanayo oo ka dhiga muddo kordhinta runaantii inaysan sida ay wax u fiirinayaan aysan u fiirin oo dhinaca kale ka egaan iyo horumarka isku horanka ee 1 sano loo qaaday waxaan u soo jeedinayaa madaxda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dadka shacabkaaba in maamulkooda curdanka la ilaashado si looga adaagsado ay xukuumadda talada haysa meesha ka baxdo waana mahadsantihiin b b c kuwaasina waxay ahaayeen dadka dhinaca facebooka qodobkan marka fikradooda kasoo dhiibanaya sida aan maqlaynin dad badan waxay u muuqdaan inay xoogaa yara la dhacsan yihiin in la raaco soo jeedintii baarlamaanka cumar sidee u aragtaa arrintan walaal waa mahadsan tahay anigu shakhsiyan waxaan qabaa dadku aragtidooda way diiban karaan laakiin muhiimadda waxay tahay horta haddii doorashadan la qaban waa in la fardhiga maxaa ka dhalan kara in la isweydiiyo
hadda xildhibaanka saaxiibkay wuxuu ku andacoonayay in aysan koonfur galbeed u haynin dhaqaalo ay ku qabato laba doorasho kan laakiin waxay isweydiin iyadana mudan haddii doorashada la qaban waayo ma laga yaabaa mid ka daran inay dhacdo waxaa ogsoonahay doorashadii federaalka hadda markii kordhin ay sameeyeen baarlamaanka ay sameeyeen in dhaqaalihii dowladda federaalka ama beesha caalamka ugu deeqi jirtay dowladdan ay ku shaqayn jirtay in la wada jirtay oo ay dowladda sanadkii u dambeysay ku shaqaynaysay lacago deyna oo laga soo amaaday bangiyada caalamiga laga soo amaaday waxaa kaloo isweydiin mudan haddii sharciyadii yani waxaan waa social contract waa heshiis bulsheed waaye qofku madaxda noqonaa markaas waxaa lagu heshiiyey muddadaas kooban xukun markay dhamaatana xukunka shacabka usoo celi ama odayaasha iyo qabaa'ilka usoo celi marka haddii heshiiskii meeshuu ka baxo waxay noqonaysaa maxay ahayso in ay sharci darro meesha ay ka dhalato qabshado inay ka dhacaan ama in dagaallo ay ka dhacaan ay kaba macquul marka waxaa jira in isba bardhigaa muhiimsan mar walba maxaa ka dhalan kara faa'iidada iyo khasaarada yani in doorashada hal xilli lawada qabto maamul goboleedyada dhan hal muddo la wada qabto wax fiican koonfur galbeed labadeeda goreyna hal mar lawada qabto wax fiican laakiin haddana waxaa isweydiin mudan bal horta waxa fiican intaa aadayno wax kaloo ka daran inay ka dhashaan macquul markaa waa midda labaad waxaa muhiim ah maamul goboleedyadu hadda way dhismayaan waa curdun ha noqoto maxaa ahayso marka laga reebo puntland inta kaloo dhan waa curdun marka yani hay-ado iyo institutions dhamaystiran ma lahan haddii xitaa hadda laisku aadiyo birri waxaa laga yaabaa in haddana ay kala dantaalanto oo sidii maaragta kale dhacdo waxaa ogsoonaha koonfur hadda in madaxweyne ku-xigeenka aysan lahayn marka taas waxay ka dhigan tahay maamulku inuu curdun yahay oo uu dhismayo maalinba wax baa ku darsamayo marka waktigay doonayaan hadda ama xildhibaanka saaxiibkay uu doonaa dad shacabkay doonaa waa la gaari doonaa isleeyahay waxaa ka muhiimsan marka koowaad in hay-adaheenna ama hay-adaha koonfur galbeed ama federaalku ay taga yeeshaan oo ay kula xisaabtami karaan ama soo joodinta iyagu ay yeelan karaan marka in lisbabar dhigo oo lis miisaamo ayaa ka wanaagsan oo la eego bal maxaa ka dhalan kara horta innagoo wanaag raadayna ma laga yaabaa micnaha in wax ka daran meesha ay ka dhashaan xildhibaan idris axmed yacquub haddii arrintan ay koonfur galbeed xallin weyso maxaa dhici kara imaanayaan dhanka doorashada marka waxa waaye arrin muhiim ah waaye arrin aan laga maarmeynin waaye arrin xildhibaan idris maqalkaaga ayaa aad u culus telefoonkaaga maqalkiisa arrinta doorashada waxaan ku dhahay arrin muhiim ah waaye waa arrin dad u abuureyso qof walba oo raba inuu isbaahiyo siyaasad kusoo qaybgalo marka waa arrin laga maarmaan ah marka khudbadii oo dadka laga reebay noqonaysaa waxyaabihii mabaadi'dii asaasiga ahaa oo dastuurka farayay in la hor istaagay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa haddii arrinta la sameeyo waxay horseedaysaa caqabado badan oo deegaanka dib u dhigaayo marka waxaan rajaynayaa in la fahmi doono oo aragtidan la qaadan doono wax soomaaliya wax baratay waaye waxaa ugu dambeysay diinigii federaalka soomaaliya hadda marka taas ugu dambeysay hadda wax ka baran weyn waxa waaye inaan taariikh samayno annaga haddaa diyaar muhiim baraa marka arrin oo u baahan waaye in loo midoobo dowladda federaalka markeeda mas-uuliyada ka saaran afartan maamul waxay ku dhismeen under the constitution of Somali government marka ma samayn karaan naftirkoodii beyond constitutionkan wax ka baxsan ma samayn karaan waxa ay ku dhismeena constitutionkan ah marka inay wax iska samaystaan waxyaabahaas ay diidaayo marka waxyaabahaas oo dhan in la oo diida inkastoo ay doorkoodii qaataan ayna muujiyaan waa kugu soo laaban doonaa wadankan waxa waaye horumar laga sameeyaa la rabaa dowladkiisa lagu jiraa waxyaabo badan oo sugaya lagu jiraa kolay madaxweynaha kolay ataa hadda qaabkan ku imaaday in doorashada diidan yahay laakiin waxaa laga rabaa doorkiisa inuu fududeeyo
waxaa loo taagan yahay labada sugaayo waa asiga doorkuu qaadan doono marka arrimahaas iyo arrimo kale oo muhiima jiro in oo waxyaabahaas qaabka loo wasiin karo in loo sameeyo waa tahay idris xildhibaan maxamed maxay haddii koonfur galbeed ay isxallin weyso maxaa dhacaya koonfur galbeed xalin weyso caqabad taagan oo aan xalino sidaas daraadeed wax haddaysan dhicin midda hadda taagan mid ka darnaa dhacayso ayuu dhahay saaxiibkeyga yusuf meesha political pressurena ma jiro oo qofka oo saaran oo dhahayo maanta haddii doorasho la qaban waayo haddii la qabto bulshada maanta oo reer koonfur galbeedna kacdoon kama jiro dalna wadaagsanay joogaan oo ayaga oo meel kasta ay joogaan nabaday ku joogaan waxay la daalaan dhacayaan awaaro sidaas daraadtaan hore kuu sheegay anigu waxaan midaynaynaa keliya doorasho haddee wax kale ay jiraanna baarlamaanka ayaa isku laabanayo baarlamaanka ayaa keeni karo sidaas daraaddeed hadda baarlamaankii oo sidii hore uu u sheegay xildhibaan idris waxaa mooshin keeneen 30 xildhibaan waxaa kooranka soo xaadirtay 87 xildhibaan oo meesha joogtay gacan ayaa loo taagay 7 fadhiga baarlamaanka maalinkaas soo fariisatay 7 way qadeeyeen wax diiday iyo wax ka aamusana ma jirin baarlamaanka wuxuu nahayna qodobkiisa 37 dastuurka ayaa cusaya waa hay-adda ugu sareyso sharci dejinta dowladda koonfur galbeed sidaas daraaddeed waxay go-aan qaateen saan ugu sheegay in la waafajiyo wax caqabad ah iyo wax ka daran oo dhacaya eelaha naga haayo maantana xaaladda lagu jiro ma aha xaalad maanta oo kursi loo ordo waa xaalad ciidan oo musiibooyin fara badan ay ka jiraan waxaa noo haara lagu darsadayna maanta aan mideynay marka labada doorasho la midayna waa hal sano maanta intii oo lagu guda jiro howlaha doorashooyin hadii la qaban lahaa saasay ku dhammaanaysaaba halka sano marka ha loo furo ummadda reer koonfur galbeed si xal waar loo gaaro hadday ka jiraan tabashooyin ay qabaan siyaasiyiintana taasna iyadoo si qoraal ah ayay xafiisyadan u furan yihiin loogu soo tirtiraa qodobkeenna oo dastuuriya sheegayo inuu qofku uu soo qoran karo araajiyo qoraal ah uu ku soo dirayo xafiiska madaxweynaha xafiiska golaha wakiilada xafiiska golaha fulinta intaba way qabanayaan sidaas daraaddeed hadduu uu ku jiro wax ka daranna allah naga hayaan leenahay doorashada waqtigeeda la gaarayaa siyaasiyiintana si qofna colaad uusan abuurin ilaa 4 sana la soo joogay barwaaqaad uu soo joogay hal sano noo dhimanna barwaaqo ka wanaagsan iyo horumar wanaagsan ayaan filaynaa insha allahu tacaala waa tahay cumar aan aado cumar yusuf waxaa hadda jooga magaalada baydhabo kusmaha madaxweynaha islamarkaana gudoomiyaha baarlamaanka shaqaabad madoor wuxuu sheegay in heshiisiin la qaban markay kula tahay in heshiisiin walaal waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay dibushinta sideedaba waa caado inta doorashada haddii ay dhammaato maalgolgada ay ka dhammaato maadaama hadda qofkii cod waddankaysan ku jirin in maxay ahaato beelihii hore wax isaganay iyo aragtida beelaha ay qabaan iyo in isugu yimaado maalmo walba oo maxay ahaato la dhisaayana ama isbedel walba madaxweyneyaashu ay sameeyaan ama doorashada kuwa la qabana suud baa la qabtaan waxaan xasuustaa 2019 camal dibushiin inta madaxweyne qorqoor u sinimaalgelin baa laga qabtay sidoo kale hirshabelle waa laga qabtay marka dibushiinta waxay la mid tahay ama waa caado siyaasadeed oo intay ku dumisay jirtay oo inta doorashada maalgelinta aan la qaban dowladda federaalka ah iyo dowladda caalamka inta ka kaalmaysa dowladda federaalka la qabto hadda mana beelaha la dhegeysto beelaha cabashadooda iyo maxay ahaato talooyinkooda ay qabaan ka dambana meeshaas lagu soo xidho xildhibaanadii marka waxaan isleeyahay caado siyaasadeedkaas deynka soo jira ay iska tahay saas kan kale waxaa ogsoonnahay 3 baan maamul goboleed galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed 3daba saraaxa go-aankooda wuxuu ka go-aa dowladda federaalka ah yani dowladda meelaha ka walgasho ciidamada federaalka meelaha way joogaan kaalmada dowladda federaalka ay siiso 3daas maamul goboleed baa waxay ka go-aan sababtoo 3daas maamul goboleed malahan ila dhaqaale
sida labada maamul goboleed oo kale oo dekada iyo maxaa albooro waaweyn leh sidaa awgeed marka waxaa isleeyahay koonfur galbeed arrinteedu waxay ku dhammaan doontaa madaxda federaalka ha noqdo guddiyaha baarlamaanka madaxweynaha noqdo ay ku dhammaan doontaa waxaa kaloo iyana isweydiin mudan doorka ciidamada shisheeye saameyn ku yeelan karaan doorashada sidii dhacday midii jubbaland 6 sano ka hor ka dhacday iyana isweydiin ayay mudan tahay marka waxaa isleeyahay dibushinta waa caado dhaqameed ama caadadaas ku jirto waaye waxaan hordhac u tahay in koonfurta isbedel uu ka dhici doono xildhibaan maxamuud maxay yaa loo qabanayaa dib u heshiisiinta wallaahi inta hadda guddoomiyaha uu u iclaamiyey waxaa arkayaa dadka soo xaadiro meesha dib u heshiisiinteeda waxa waaye in ay dirirsan tahay qolo mise koox dowlad sidaas daraaddeed maalinta oo dib u heshiisiinta uu iclaamiyey guddoomiyaha waan la soconnaa sidaas daraaddeed waxaan arkaynaa dadku dirirsan ay maalintaas howlka soo xaadira ee la heshiisiin doono kulley aniga baarlamaankeena iyo xukuumaddeena iyo dowladda guud ahaanba qabka fara badan kama jiro marka maalintaasaan sugayna maxaad ula jeedaa ma ogi cidda heshiisiinayneed ula jeeda hadalka ma ogi cidda oo dagaalsan ee la heshiisiinayo ayaa xildhibaan idris adigu yaa la heshiisiinaya waa lagu dhawaaqay guddoomiye marxaladaas keentay iyo xaalad taagan waxaad dareemaysaa marka dib u heshiisiin lagu dhawaaqay in iska qabsi uu jiro iska qabsigaasna waa daawo u yahay marka waxa la heshiisiinayo iyo waxa lagu heshiinayoba waa labada ogsoon yahay reer koonfur galbeed way ka warhaayaan guud ahaan dowladda iyo shacabkeeda way ka warhaayaan waxa laysku haysto waa waxa aan ka doodeena oo doorashada ah guddoomiyaha wuu imaaday fikirkiisii xukun uu kasoo bilaabay dibisiisiinta meeshuu kasoo bilaabay intuu imaaday wuxuu la kulmay qaabilay oday dhaqameedyadii dowladdii madaxdeedii wuu arkay xamar maasbaduu kusoo qaabilay marka asaa ku dhawaaqay dibisiisiinta doorashana loogu dhawaaqay waxa laysku haysto doorasho waaye siyaasiyiintii iyo madaxdii dowladda in la iswaafaqsiyaa la rabaa aragti kala duwanaanshaa jirto been ma laga sheegi karo aragtiday kala duwan tahay waxa laysku khilaafsan yahay waa doorashada wax kaloo laysku khilaafsan yahay ma jirto marka doorashadaas in laga heshiiyey u baahan tahay sidoo kale musharaxiintooda baydhabo la kulmay guddoomiyaha aragtidoodii waa way u sheegeen wuu ka aqbalay marka inuusan baajinaa la rabaa inuu sigooba inuu galo waana aaminsanahay inuu gali doonaa adoon inuu ka tegi doonina aaminsanahay baydhabo wuu kaga dhawaaqi doonaa waana la wada sigooba dadkii u sheegay inuu la kulmay dadkii u sheegay dadkii uu la kulmay wuu u sheegay inuu arrintaas kaga dhawaaqaayo baydhabo uu ugudaasna galaayo furaayo dadkii ku imaanayo si walba loo helo laakiin muhiimadda waxa waaye dadka in la wada oo waxa jira la iska daaweeyo soomaalidu in wada waa waxu jiray intaas waxa lagu soo wada joogay waxa waaye dowladnimada asna waa iyo waxyaabo la joogin jiray oo dhaqanku la xiriiro marka arrintaas waa inta laga maarmi karo gudoomiyaha loogu fatwaa dadka arrinta ugu beegan maxkamada waa waxaa wadaanaba ama baarlamaanka dibadda la kulmay marka arrintaasna waxa waaye asaa lagu wada ay muhiimadu tahay halkii keliya hadda iyo muuqda waxa waaye in doorasho laga qabto ha noqoto koonfur galbeed ama goboleedyada kale ha noqoto in doorasho laga qabto ayaa muhiim ah sababtoo doorashada haddii la qaban waayo hore aan u saaro soomaaliya gurmukooda kala caqabado marka waxaa isleeyahay wadanka wuxuu ku jiraa xaalad lagu jira wadanka wuxuu ku jiraa abaaraha fara badan wuxuu ku jiraa haddana
inay dadka siyaasiyiinta ee koonfurka bad ka soo jeedo ee u furaan dadyoga dhibaataysan ee maanta la gaalagacaya abaaraha iyo colaadaha inay u furaan sidoo kaleeto guddoomiyaha hadda ii sheegeen inay qiimiyeen inuu dibheshiisiinta oo inay odayaasha la kulmeen waa wax fiican guddoomiyaha doorasho deegaankiisii waa beetabo koonfur galbeed markas waa muhiim inuu soo marnaqdo oo ka warheeyo dadkiisii oo deegaankiisii saas daraaddeed way fiican tahay heshiisiin mar walba guri xataa dagaal uu ku jiraa hal guri famil dagaal uu ku jiraa an waa loo sheeganaa caqabadu way jiraan barwaaqada meesha way fiican tahay saas daraaddeed kuwa aqriinka sheegaysa maanta iyo alaali abaarta shacabka mar walba waxaan farayaa inay ilaashadaan dowladooda ee nabadda hoosteeda sida aqalkan kusoo joogo dana siyaasadeed in la gelinin in loo hogaansamo dowlad wanaaga siyaasiyiintana u furaan deegaankooda dalkooda guddoomiyaha baarlamaanka murashad cadamadoobe wuu ku mahadsan yahay inuu soo fooqdo dowlad deegaankiisii
waxaan kusoo dhawaynaynaa qaybihii gabagabada barnaamijka cumar fariinta ugu dambaysa aad diraysa maxay tahay aduu soo koobay walaalo maasan tahay diinteedu waxay tahay in koonfur galbeed aysan raalli ka noqon dib u dhac dambe oo ay gasho koonfur galbeed waxaa loogu baahan yahay inay u hoggaansato shuruucda ay dhigtaan ama dastuurka federaalka ha noqdo ama mid koonfur galbeed ha noqdo sidoo kalena isku ilaaliyaan inuu ku yimaado dib u dhac dan walba leh xagga dhaqaale iyo xagga horumar intaba sidoo kale koonfur galbeed in doorasho iyo khilaaf oo ku qabto waxaa kugu muhiimsan inay u geysato dhanka wax ka qabashada abaaraha waan ogsoonnahay meelaha ugu badan oo abaaraha ama dadkay kusoo barakaayeen koonfur galbeed tahay sidoo kalena meelaha ugu badan oo horeynta u baahan ama gacanta booliska ku dabad ka maqanna ay koonfur galbeed ku jirto marka waxaan kuleeyahay in doorashada ku qabto waxaa kugu muhiimsan inay u dhigeystaan qabashada abaaraha iyo horeynta dalka sidoo kalena heshiiska bulshada in la ilaaliyo waa maasan tahay BBC saaxiibada barnaamijka ugu jiray cumar iyo xildhibaan idriis waan ku raacsanahay cumar oo dhahay hadalkiisa ugu dambeeyey in loo jeesto abaaraha iyo colaadaha in wax laga qabto maanta koonfur galbeed aan lagu hogaamin in miisaaniyad iyo dhaqaale xumo iyo doorasho la aadiyo haddii intii colaad ay jirto iyo abaar ay jirto in dhaqaalihii doorasho ku bixi lahaaba la aadiyo dad gaajeedsan marka sidaas daraaddeed ugu dambeyn waxaan kaga mahad celinayaa BBC-ga fursadaha inoo siisay inaan ku hadalno waxaan leeyahay siyaasiyiinta koonfur galbeed doorasho waa la gaaraya waqtigeeda waxna kama dhigna waxaa anaga isu afjirnay kii laba doorasho waa 2024 waana waxaa noo dhiman muddo kooban sanadka inaan galno sanadka gudihiisna farsamo noo bilaaban doonto ha sugaan inta noo dhiman wax qabsiina in meesha ka dhacaan ma doonayno dib u heshiisiintana waa soo dhaweynaynaa gudoomiyahana dib u heshiisiin kuraas badanaa jirto oo laga heshiin karo qabsi dowladda federaalka kuraas badanaa lagu qabsaday colaado badan oo beelaha hoos uga jiraan beelo kale oo meelo kala degana colaado ay ku jiraan in la booqdo magaalo kasta sharaaba in la booqdo sidoo kaleeto beedhaw wuu booqday marka cadiid inuu booqdo dadkoo dhan in magaalooyinka magaalo madaxda gobolada inuu shaqa madow ka doocayaa waa tahay aad mahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanu intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka